mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreeyo militariga dalka Mareykanka oo si toos ah u kashifay dukumenti la dhaho classified oo qarsoodi ah dowladda u diiwaan gashnaa laakiin uu kashifay. Mareykanka waxa u qorsheysneed inuu wadamadan burburiyo ee soo socda. Waa idin fasaxaya hadalka sargaalka. Ciraaq, Syria, Lubnaan, Liibiya, Suudaan, Soomaaliya waxaana loogu dambaysiinayaa uu leeyahay Iran asaga afkiisa noogu sheegay hal mar muuqaalkan ila daawada. And he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. I said, is it classified? He said, yes, sir. So go through the countries again. Well, starting with Iraq, then Syria and Lebanon, then Libya, then Somalia and Sudan, and then back to Iran. So when waayay muuqaalka aad u dheeraa laakiin intaan yar ayaa idinkaga soo qaatay. Waxyaaba uu leeyahay waxa kamid ahay ninkaas waa sargaal Wesley Clark wuxuu kamid ahaa saraakiisha ugu waaweyn ee hogaaminaysay dagaaladii Iraq iyo Afghanistan waliba CIA-da la shaqeeyay bariga dhexe iyo Afrika adiga afaarahaas oo dhan ku lug lahaa. Marka waxyaaba uu yiri waxa kamid ahay wasiirkii gaashaandhigga waagaas jiray markii dadka xasuusto daarihii New York lagu dudumiyay Osama bin Laden waxa yimid oo dhahay wasiirka gaashaandhigga waagaas Mareykanka yimid warqadu ii keenay warqadaas waxay ahayd classified waa warqad dad yar ay ogaan karaan madaxweynaha uu kamid yahay iyo wasiirka gaashaandhigga laakiin ninkan wuxuu yiri warqada la soo hordhigay warqada markaa fiiriyo dhahay waxa ku qornaay liiska sida loo kala horeeyo dalalka Mareykanka iyo CIA-da ee tahay inay burburiyaan Iraq kowe ka ahayd waa tagaleen oo Saddam Hussein meesha ay ka saareen oo foodo iyo dagaalkii sokeeyay ku bilowday ilaa haddeertaan Iraq ay kala jaban tahay waxa kamid ahaa uu yiri Syria hadda maxaa ka socda Syria way kala jaban tahay ayadana Syria dhinacna Mareykan haysto dhinacna Ruushka haysto dhinacna Turkiga haysto dhinacna Kurdiina haysto dhinacna waxa haysto madaxweynaha hadda jooga Bashar al-Assad waxyaabaha kale uu xusay waxa kamid ahaa Lubnaan afkiisa ka maqasheen Lubnaan maanta maxaa ka socda Yuhuudda dalaq dhaxday taangiideeda galay habeen iyo maalin duqeynta ka socoto Lubnaan waxay la mid tahay tii Gaza ay ka wadeen bilay la soo dhaafay dukum daakum biiru habeen iyo maalin waa laga qaxaya dadku way qaxayaan sheekadan yaab kale il dhageysta ee ka shifmatay Lubnaan liiska ku jirtay waa tan hadda burburayso waxyaabaha kale uu xusay waxa kamid ahay fiiriya Liibiya markuu ninkan noo sheegay warkan waa hore ahayd waa Muammar al-Gaddafi waagaas uu joogay laakiin liiska CIA-da waxa ugu jiray in Liibiya la burburiyo Liibiya aad meel ku sheeg Gaddafi meesha ka saareen dhinac Turkiga ka haysto dhinac Ruushka ka joogo kuwa caloosh shaqaysaal Ruushka dhinac Mareykanka ka joogo Liibiya laftirkeeda dagaal ka socdo oo waa dad shidaal leh oo qeyraad leh Soomaaliya waxa rabaa barnaamijka inay dhiga u furtaan General Wesley Clark wadamada kale uu xusay waxa kamid ahay yaabkan ila arka Suudaan waxay liiska ugu jirtay Mareykan inuu burburiyo Suudaan 12 sano ka hor 13 sano ka hor laba u kala jabtay koonfurta Suudaan waa booday Suudaanta kale hadda soo hartay ee ayadana nabadda ahayd dagaalkii ku bilowday sanad ka hor mise 2 sano ka hor ma qaane laba sargaal isku haysato Suudaan ayadana waa burburtay waa dukum daakum Soomaaliya ayadana wal dagaal soo ka ku jirna ogtiin laakiin wati Ethioopiaanka Mareykan soo fangareeyeen oo dalka ay imaadeen adiga waa ogeed yani qorshaha Mareykanka waxa ugu jiray liiska in Soomaaliya ay kamid tahay dalalkaas la burburinayo dadka xasuusto aniga waxa kamid ah ciyalkii aad ku yeeray waagaas aad ku xasuustay markii daarihii New York dhulka la dhigay Mareykanka diyaaradahooda habeen iyo maalin Soomaaliya kor wareegayeen waagaas waxa jiri jiray albarkaad jiri jiray taleefanka albarkaad waxay liiska ku dareen dadkii waagaas madaxda ka albarkaad argagixisatihiin Allah xitaa waxa ka baqeeyay in la duqeeyo waagaas waxa xasuustaa Osama bin Laden markii raadinayeen in Soomaaliya duqeyn ay ka dhacdo alaga wayna sameeyeen ogaada diyaaradahooda meel qaar ay duqeeyeen marka Soomaaliya qorshe waxa ugu jirtay Mareykanka iyo CIA-da in la burburiyo oo meesha lagu sii haayo waad sababta Ethioopiaanka ay noogu soo direen iyo dilkii iyo dhacii iyo boobkii iyo kufsigii wixii ka dhacay ilaaha afkooda ka keenay waa iska shifeen saa ujeedaan generaalka uu dhahay laakiin sheekada meesha aniga hadda aan rabo inaad attention ka siisana waxay tahay dalalkan hadda asoo xusno dhan way burburiyeen markii laga reebo hal dal oo liiska ugu jiro
aan weli burburin soomaaliya dhigaha u fura iiraan afkiisa ka maqasheen wataa afkiisa ka maqasheen Wesley Clark generaalka wuxuu leeyahay markaa wadamadan burburino Ciraaq dhulka ala galno Syria dhulka ala galno Libya dhulka ala galno Lubnaan dhulka ala galno Suudaan dhulka ala galno Soomaaliya dhulka ala galno ayuu yiri meesha ugu dambeeso ee la rabo CIA-da iyo Mareykanka inay burburiyaan waa Iiraan sida waxa aniga aad oo la yaabanahay oo hoosh hadda u socoto maxaa yeelay Yuhuudda Gaza waa tay burburiyeen oo dukum daakum dhulka Gaza waa budo wax soo haray male hal guri taagan male Lubnaan waa burburtay hadda habeen iyo maalin duqeynay ku wadaan oo Lubnaan maanta guri taagan oo dhisan waaba waxa dhigi kartaa waa qaliil runta marka ka hadalno marka abo Iiraan loo socdaa Iiraan loo socdaa marka kolley goor ee dhaceyso iyo qorshaha Yuhuudi iyo Mareykanka wax yani waxa dhiga fura dhiga attention hala sii baashaan Soomaaliyana maxaa yani hadda anaga maxay CIA-da booqashadii daraad ay ku imaadeen maadaama Soomaaliya liis ugu jirto dalka ay burburiyaan ama ay burburinayaan booqashadii CIA-da Xasan Sheekh iyo ninka kale odaga ahay ee haystay maxaa laamaha amaanka ama sirdoonka maxaa laga wada hadlay aniga hadeertaan leeba hurdi inaa ka soo kaco sheekadan aan bilaabaya wixii xog ay soo ogaado ee soo helo waa idin la shargareyn doonaa laakiin ninkaas hadlaayo ma ahan ciyaar ma aha waa sargaal hore oo xitaa mar madaxweynenimo u tartamo waay sir uu haayay ee dawladda uu ka keenay ayuu toos noogu sheegay kulley ilaah afkiis ka keen la dhihi karnaa sabab ani ma aqaan sabab kale oo kalifi karto inuu dadka soo horfariisto oo toos ugu sheego qorshaha Mareykanka ee duduminta wadamadan